بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدي بمدة الصوماليات قف كيد لها اللي ولاشين أمين لك أوفيشيال. سلام كدي وحن رباء مدة الصوماليات دلك جوديسي دي بدي سكال تشوجا أدون كمال كستد كتشوكتان مركو جوه رسائنا الإديم مهد عليو سيد الشرفت كتشرتا سيد النحريت كتشرتا سيد ضمير كأ أضوه لسان بالشدة كنا الله سعانات بدو ما تنتين ولا عرقتين دبعتها يدل ميقلقو هيو ومداس مسلمين تاعي الصوماليين انت لو جيسنيا واد نلا aragteen waad nala dareenteen ilaahay subxaana wa tacaala xaqa ayuu dilaaciyay waxaan idinkaga mahad celinayaa sida damiirka iyo bini'aadanimada ku jirto ee aad u taageerteen sool iyo lasacaanood waxaan leeyahay bulshada reer sool maanta idinku dhowdahay ama waa guul ama waa geeri labada mid un baad maanta insha Allah heli doontaan haddii ilaahay yiraahdo marnaba dulmi ha ogolaanina idinkuna dulmi ha gelinina waxaan idinkala dardaarmayaa oo kaliya bulshada idinkula nool dadka idinkula nool qabiil kasta oo yihiin siiba qabiilka aad maanta isdilaysaan ee Soomaaliland ka socda haddii ay yihiin dad aad wada dhalateen ama dad aad ehel u tihiin ama dad idinla degan oo deegaanka idinla degan inaad badbaadisaan waayo xadiis baa ahaa muxuu ahaa من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه قفك أن آخرة يمعنت إله يمعنت آخرة رميسانو waxaad ixtiraamtaa martida aada marka martida idila joogta iyo dadka ehelka ah ama xididka aad noqoteen ee idila nool horta marka ugu horeysa marnaba idinku ha ku xadgudbina xaqdarana ha gelinina hana dilinina hana u dhawaanina waxaad la dagaalaysaan oo iska difaacaysaan waa ciidanka idin yimid ee gardarada idinku yimid waa horgalaha la socda ee bilaa damiirka ah waa nin kasta oo markaa u yimid inuu laascaanood dhibaato ka geysto ka xaq baad u leedihiin inaad iska difaacdaan diinta ilaahay baana idin ogolaatay taa laakiin dadka idila nool ama waayeel ha ahaadeen ama qof nin idinka qaba gabar ha ahaado ama gabadh muxuu ahaa wiilkiinu qaba ha ahaado ee caruur abti u tihiin dhashay marka dadkaas oo dhan waa inaad magangeliyo aad siisaan insha Allah ku ixtiraamtaan deegaanka iyo magangeliyada loo baahan yahay qofka islaamka looga baahan yahay laakiin mid kasta oo askari ah ee u yimid inuu dalkan sida khasabka ku haysto xaq baad u leedihiin inaad iska difaacdaan maanta idinku dhowdahay bulshada reer soolow bulshada dhulbahantow maanta waxa idinku dhow inaad iska difaacdaan dulinimadana aad ka baxdaan xaq weeyaan dagaalka qabaa'il ma aha xaq yacni dagaal lagu dagaalamayo qabaa'il ma aha waa dagaal lagu dagaalamayo naftaada inaad badbaadisid iyo maalkaaga iyo gurigaaga inaad badbaadisid ummadda Soomaaliyeedna maanta markhaati bay ka yihiin way arkaan gardarada qofka dadka gardaroonaya waxba yaan marba bulshada intay u soo istaagaan madaxdooda ayana dhihin waanu ka xunnaay wixii ka dhacay meesha yay dhihin cadowga Soomaaliland baa laascaanood dhibaato ka geysanaya cadowga Soomaaliland hadduu jiro Hargeysa iyo Burco iyo Berbera wuu ka geysan lahaa cadowga gaarka u ah laascaanood waa la yaqaanaa waa idinkoo rabaa inaad qasab ku haysataan qofaan fahmaynin baa taa u sheegaysaan wax cadow meeshan ma jiraan markana leedihiin dadka iyagaas isdilayay dadka iyagaas sidan sameynay rubahanta weligood bay soo wada noolaayeen hadday isdilaana markay isdilaana waa la wada maqlaa labada jilibe markay isdilaba waa la maqlaa sheekadooda iyo dagaalkooda waxaan hoos ahaan dadka u dhameynaya waa la ogsoon yahay meeshay ka imanayaan marka la idinkama yeelayo dulmigan ummadda Soomaaliyeed oo dhan maanta way arkayaan wayna u hiilinayaan qofkii ilaahay yaqaan xaqa uu hiilinayaa qofkii aan alla aqoonin ee raba inuu qabaa'iliga ku dhaqmana de sidoo doon u dhaqmaya waxaan u mahad celinayaa bulshada qaarkood xitaa ka soo jeeda Soomaaliland ee difaacay xaqa waayo waxa jira ummadda ilaahay ma simin ilaahay subxaanahu wa ta'ala dadka kala qabaa'il iyo shucuub ka yeelay laakiin ma simin waxa jira dadyow ka soo jeeda ee Soomaaliland ka soo jeeda oo isaaq ah oo haddana difaacaya xaqa waayo waa qof muumino ilaahay yaqaana qofka markuu arko in bulsho masaakiin la dulmayo ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayuu xasuustaa aakhiradiisa ayuu u baqaa runtana ku dhaqmaa laakiin qofkii indhatiraya isagaa indhatiraya hadaad indhatiraysid oo aad ku taagan tahay inaad qabaa'il iyo cuqdad kugu jirto aad ummad bulsho masaakiin oo deegaankooda intaad ugu tagto ku dishid ama ku qabsato aad tiraahdo war ha hadlina taas waxaad ogaataa maanta inay adduunta tahay berina la tegayo aakhiro la aadayo marka bulshada Soomaaliland ka soo jeeda ee damiir kale qaarkood ee dareemaya ee khaladaadka dadka bulshada muslimiinta laga galayo horta waxaan rabaa inaan u mahad celiyo iyaga laftirkooda ummadda kale Soomaaliyeedna inaan u mahad celiyo
waxaan idin leeyahay xaqa ha loo hiiliyo qof walbo ilaahay yaqaana xaqa ha uu hiiliyo shiiq iyo shariifba haddaad aad arkaysaan dulmi waa inaad dulmiga diidaan waayo waad ogtihiin in dulmiga ilaahay subxaana wa tacaala qofka taageero uuna ku liibaanaynin maanta haddaad ku taageertaan hargeysa inay laasacaanood sidaa ula dhaqanto beri ka maalin ma ku liibaanaysaan dhibaato badan baa ka dhici kara oo waynu ogsoonnahay in siyaasadda somalilan aad la isugu haysto waynu ogsoonnahay cuqdada ku kala jirta isaaq gudahooda taasaa waxaa dhici karta dulmigaad ka soo gelaysaan laasacaanood inaad gudihiina isku gubataan way dhici kartaa taa waayo dulmigu ma raago dulmiga iyo nafsigu midna ma raago marka ha laga digtoonaado aad baan ugu mahad celinayaa soomaalid weynta ka dareen celisay dhibaatada laasacaanood ka jirta reer laasacaanooda waxaan leeyahay guusha waa la gaari doonaa sanadkii waxay noo dhalatay 2023 sanadkaas haddii ilaahay yidhaahdo laasacaanood waa inay xorowdo haddii ilaahay yidhaahdo insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ha ka daalina idinkaa guul gaari doona insha allah